Welcome to the Gigabyte Tech Consulting IT. Cashirkan waxaa looga hadlayaa searching object in Active Directory. Searching object in Active Directory. Aan uga hadlaynaa cashirkan marka waxaa tusinayaa sidii u search garan lahayd device-ka ama user-ka oo ah jidka yar aa raaci leeda aada raacin jidka weyn. Haddaba let me log into my server. Anaa tusnaa waxaan ka hadlayo adikoo raali ah fiirso. Waxaan ka hadlayaa ID-gan ka hadlayaa searching ama finding wax loo yaqaan ama found objectiga haysatid hadduu yahay userka ama computer ama device-ka on the server managementiga ama 2012 Windows Server 2012 R2 ama Windows 2016 R2 is waxa waaye waa isku wada mid kanaan iska xirayaa. Cashirkan cashiro kale ka horreeyay marka haddii aad cashirkan kugu horeeyo waxaan jeclahay adigoo raali ah inaad cashirada kale soo fiirsid. Waxaan ka hadlayaa qaybtan ku soo celimaa waxaan hore uga hadlay. Marka qaybtan waxaa waaye searching object in Active Directory. Okay. hore saa ula socdo waxaa weeyaan Active Directory-kan rabaa inaan quick ama shortcut wax loo yaqaano saa u heli lahayd device-ka kugu jiro ama user-ka kugu jiro ama employee-ga kugu jiro ama device-ka intay yihiin. Haddaba intaa imaanaysaa meeshay ku qoran tahay tools. Waxaa kasii tegaysaa Active Directory user and computers. Kala garanaysaa hal mar saa ula socoto window kaloo soo saarayaa. Waxaan ka hadlayaa domain computers and domain users. Marka qaybtan waa kasoo hadlay waa qaybtii long way-ga waaye ama jidkii u dheeraa. Waxaan tusinayaa intaanoo daaqadooyin waxay u taagan yihiin qayb walbaba waxay u taagan tahay. Marka aniga kama hadlaya intaan qaybo inaan qeexo waxaan rabaa inaan tuso quickest way ama jidka ugu yaraa ku heshid device-ka ama user-ka oo ku jiro domain-ka aa isticmaalaysa ama server-ha aa isticmaalaysid on AD ama Active Directory user wax loo yaqaano oo AD ah. Meesha aan almost highlight gareynaya ay ku qoran tahay find object in Active Directory domain service hal mar taabo. Marka aad taabatid weynina wax yar marka aad taabatid meeshaan waa meeshaan raba inaan wax ka bedelo ama meeshaan waa meeshaan kale oo ku xigto daaqadan raba inaan daaqadan wax ka bedelo ama daaqadan ku xigto. Marka daaqadan already waxaan ku bilaabaya already waa ii joogaan waa user contact and the groups. Marka waxaan rabaa inaan ogaado inta user oo ID-ga ku jirto loo yaqaano DA ama DS. Magaca ugu hore aan bilaabo dan magaca ugu hore labada xaraf haddaa magac ka dhahdo AB haddaa dhahdid AB badan ayaa ugu jiro fine aa leedahay waa kaasaa. Marka qaybtan kale aan ka hadlayay waa qayb saasoo kale meel ah waa ka soo hadlay cashiradii kale sidaa u faan garan lahayd qayb dheer weeyaan. Qaybtan waa qaybtii oo jidka yaraa aan ku soo celiyay. Marka haddaad fahansaneyn window-gan aa ugu weyn iska yareyn kartaa haddaa rabtid aday kugu xiran tahay anintaas ugu filan. Marka waa kaasaa qaybta saa u heli lahayd user-ka ama device-ka. Marka ku dheeraa maayo taas waa user-ka waaye
waa searching objective and director active director oo ku jiro. marka waxaan tegayaa qaybta kale userka waan ka hadlay. haddaan halkaa ku garaaco device computers aan ku garaaco and find ma ii soo saaraya. wuxuu isugu soo saarayn haddaan kusinayaa qaybtan marka aad rabtid inaad computerka raadid waa in aad xulataa waxa aad rabtid. haddaa userka rabtid userka hadda waa aniga waa ii joogaa. haddaa computer rabtid computerka aad tegaysaa. marka windowga click leedahay halkaas option uu kusinaa majido wuxuu ku leeyahay waa arkaysaan ka wadaa raal noqda computer print and then share folders. marka ana computerka haddayti garaacay waxaana joogay userka ima siinayo. okay oo ku celinayo computer aan tegayaa hid okay aan leeyahay. haddaan garaacayo computerkana marka computerka aan rabo waa aqaanaa convention namekooda aan aqaanaa computerada ku jiro serviceka igu jiro waa garanayaa. saddexda xarafo ugu horeysa haddaa garaacdid ama labada xarafo ugu horeyso fine taabane now asaan ku siinayo labada xarafo ugu horeyso waa kaa ab haddaa garaacdid gb haddaa garaacdid waxa uu yahay computerkaada labada magaca ugu horeysa haddaa garaacdid. taas waa toolkan uu aad iyo aad ugu fiican yahay. haddaa garanaynin xarfaha computerkaada badan oo labada xaraf aad taqaanid aad fine dhahdid ulajeedada aan rabo inaa idii tuso aad fine dhahdid waa horow kaaga sheegaya. marka waxaad dooranaysaa computerka isticmaalaysa markaas ama computerka aad rabtid inaad wax ku dartid ama wax ka dhintid. marka halkaa waa kaasaa hadda computerkan meeshaas waxa ii joogo computers ii joogo waa taabanayaa halkan waa inay kuu joogaan domainkaada. opshano badanaa jiro ani waxaan jeclahay 100% ee dadka ay firiyaan entire director haddaa dhahdana active entire director haddaa dhahdid waa kaasaa ikaada xirmaaska iga waxismay raal noqda entire director haddaa dhahdana wax walba kuu sheegaa. haddaa intaan aa isticmaasho waa intii servaha ku jiro intaba waa wada isticmaali kartaa. hadda marka haddayti userkan computer ku garaaca wuu diiday. hadda user aan isku daya ab aan leeyahay fine aan leeyahay santin uu dhahay fiiri no match. marka waxa weeyaan mar walbo oo muhiimadda ah marka aad toolkan isticmaalaysid labadan daaqadood haddaa computer isticmaalaysid waa inuu computer ku joogaa. haddii aad isticmaalaysid user waa inay daaqadan ku joogtaa user. haddaa rabtid kan aad tegaysaa kan aniga personal ahaanteeda anaa jecelnaa saas u haysto laakiin any qayb aad tegi kartaa oo domainkaada ah si gby.com kaas oo tega waa ka heli kartaa. waxaa ka heli kartaa gby waxaa ka heli kartaa entire director. marka cashirkan waa cashirkii search ama quick aad ku faangarayn lahayd search object in active director domain service weeyaan mafahant. taasna taas waa ka soo hadlay qaybtii kale oo qaybtaana iska xiraya oo qaybtaana oo domainka aan saan u heli karo waa ka soo hadlay ku dheeraa maayo. taas waa long way tanna waa shortcut tanna waa jidkeeraa weeyaan jidkeeraa taasna waa long way. marka qaybooyin badan ayaa jiro qaybooyinkaas ah in mar walbo aad heli kartid si easy ah ama sida ugu dhabyar inaad u heli kartid waxa aad raadinaysay. marka muhiimaddeena marka waxaa waaye aan hadda idin tusinaa muhiimka ugu weyn uu yahay search for object ama ha noqdo user ama ha noqdo device aad raadinaysa adigoo ah qofka wax ka bedela qofka right admin uu haysto AD inuu wax ka bedelo oo raba inuu domainka tago ama active director user uu tago uu ogaado device-ka magaciisa iyo wuxuu haysto. marka cashirka kalaan ka hadlayaa wuxuu haysto ka hadli maayo hadda. marka adigoo raali ah
cashirkan aan ka hadli doonaa waxaan ka hadlayaa AD CS AD DS DNS waxaasoo dhan aan hadda ku dheeraamayo waa ka soo hadlay micnooyinkay leedahay all the server aan haysto meesha igu jiro serverna haddaa garanayn marka waxaa waa serverhan waa server meeshaan igu jiro taas waa cashir kale waaye ka hadli maayo okay